بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلامتين بالشوينتا الصومالية ميل والبجوكتان waxaa sii wadi doona casharkii saddexaad ee ku saabsanaa barashada asaaska kombiyuutarka sidii qofku u isticmaali lahaa isla marka hore soo sheegnay weeyaan kombiyuutarku iyo iPad-ka iyo waxyaalahaasi waa wax muhiim ah dadka maanta inay isticmaalaan inay fahmaan sida loo isticmaalo wax kale ku daro waxa weeyaan haddaad baratid kan qaabka loo isticmaalo wax walba oo ku shaqeeya system software waa fahmi doontaa oo ku fudaan doona laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan inta ugu horeysa inta hore hadduu qofku yara fahmo wax hor istaagi doona bidilaahi karim ma jiri doono wax walba u fudaan doona marka maanta xilqaam wax baro berito wax walba ku fudaan doona kaliya waa isbaraysa waa qaabka baaburka loo barto kale starista iyo geerka qof geliyo baaburka dhaqaajiyo hatta baaburka kale la siiyo nooc kale u wadi doona baabur saddexaad nooc kale u wadi kara hatta automatic loo keeno u wadi kara saasuu baaburka markaa wadisiisu ugu fudaanaysa bismillahir rahmaanir rahiim maanta waxaan ku bilaabaynaa maadaama soo qaadanay waxyaalaha ku saabsanaa script boardka wixii ugu dambeeyay maanta in yar baan ka qaadanana kadibna waxaan geli doonaa control panel kadibna hadduu ilaahay ma wax geli doona Microsoft Office bilowgiisa waxa weeyaan kan oo kale imka faylka sameeyay barashada kombiyuutarka maalintii ugu dambeysay marka la furo faylkan muxuu faa'iido leeyahay wax loo bixiyo toolbarka haddaad aragtaan iyo kan kale kan horta marka hore waxa weeyaan horta calaamadda cas waxaan xir tanna waxaan hoos u dhig si aan u fahamno hoostuu yaalayaa soo qaad saasaa ugu dhufanaysaa xir wuu xirmanayaa fur double click mouse-ka gacanta midigta balka gacanta bidixda haddaba ayaguna muxuu yahay kani waxa weeyaan wax walba fayl ku jira meesha xagga baa ka soo saari kartaa xalan karo imika script board maxaa hor yaala xagga buu iga soo saarayaa script board waxay miiska fadhigayga ku noqo daatuur dad tago saas uu isiinaya hataa ku noqdo mar labaad aan tago script board waxaan doonayaa faylkii barashada kombiyuutarka barashada kombiyuutarka sida u aragnay marka waaya toolbarkan qofka doono kan toolbar wuxuu ka soo saari karaa waxyaalo kale toolbar kale oo wax kale ka caawin kara sida kan oo kale xaggan layout buu gelayaa menu raad buu gelayaa menu kale cusub xaggan usoo dhigaya oo markaa filter iyo archive iyo edit iyo reader markaa qofku waxyaalo badan waxaan ka dooran karaa مثلا خلال الله نت ماب waxaan kala saaroonaya wuxuu siinaya map cusub oo map cusub kana waxayaan ni map yani file cusub marka file cusub sameeyo faylka cusub waxayaan file kayd ku sameeyo warqado badan waxyaalo badan baa ku save garan kara okay maxaa kale muhiima kale waxa weeyaan xaggana wax ka har kartaan waxyaalo kale aad ka furi lahayd xaggana waa ka furi kartaa xaggana waa ka furi kartaa xaggana waa laga furi karaa waxa la doonayo faylka la doonayo location-ka meesha alaabtu taalo oo xaggana waa ka heli karaa directly waxyaana doonayo oo kuwa hemted file script boardka iyo build-ka waxa document bible iyo daatuur isla waragno kombiyuutarka kaydkiisa xaggan iyo waxyaalo badan oo kale haddaba markaan galo matalan kale aan u noqdo faylkeeda barashada kombiyuutarka aan u soo noqdo waka kaasi waliba aad u muhiim ah isaguna waxa weeyaan faylakan maxaa doonaysaa sidee noqdaan waxa doonaysaa inay noqdaan wax waaweyn balki fayl yar mise waxa doonaysaa fayl waaweyn inay noqdaan saas oo kale ah mise waxa doonaysaa inay build suurado noqdaan waxa ku jira gudihiisa sawirka ku soo saareen dibadda ku soo dhigayaan mise waxa doonaysaa middle icon oo dhexdhexaad mise small icon mise waxa doonaysaa maca information-kiisa kan weeyaan information-kiisa marka kaasa ugu fiican waa detailed lista kaasa ugu fiican waayo wuxuu ku soo saaray goorta samaysa faylka waqtiga samaysa saan kaaga dayacman marmar imika haddaan la saas isu bedelay waa inaad u garatid sayniska nacanti taariikhda iyo waqtigan sameeyey ma garatay
marka xagada taabatid uu ku kala sorteenaya uu ku kala tartiibinaya kolba kii ugu dambeeyay kii kasii horeeyay kasii dambeeyay hadda dul istaagno silin faylka oo taabno midigta wixii oo kala noo soo baxay dibadda marka taab istaagno sidoo amiga hadda doonayna masaxo kala faylkan taab baa kulanaya uu tuuraya markiiba isla marka hore sheega haddaan galo silada qashinka waan faylka masaxay wakan waan ku soo celin karaa auto restore ii soo celi meeshii igu celi waxa igu soo celiyay nmap 4 sila ordhowya intaas intan waliba mid kale jirta stock marka doonaysid imka waxaan raadinaya file loo bixiyo mid oo kale Rashid xagu yaala faylkii masaxay xagu yaala aku soo celiyo horta marka hore meesha ka masaxay haye waxaan ku raadinay iraadi faylka والله كل فنية الهادي بقولانية وهنا كبحوا سكريب وود كل طابته أما واحد دول تاجي داتا بدول استاجية رشيد بقول فنية معناها عين رادي فايل كيغو حقو يالا لوكيشنكيisu waa xagee oo ya marka wuxuu ka raadinayay system code oo ma garanaysa inuu ku jiro meeshu yaalo uu ka baalkaas wuxuu ku fiican yahay haddii warqado badan aan sameeyay fayl badan waxyaalo badan qortay magaciisa ba ku qoraysa xagga faylka haduu yahay map haduu yahay oo magana mapka wax ku ridid ama haduu yahay fayl magac ku qoran word ama excel ama access saasoo kale xagaas ma ku dhufanayso ku soo baxaya uu ku raagay inta raadintiisa adeed buu daahaya ayo my computer daatura da kula labada file book wuxuu ka raadinayaa C iyo D laba meelood C iyo D laba meelood buu ku raadinayaa waxay dadaan ku dhufan lahaa C uu ka yaraa dheeraan lahaa oo degdeg uu soo bixi lahaa wuxuu hubsanayaa inuu kaaga raadiyo meel walba oo faylkaasi ama meel walba faylkaasi uu jiri karo imikana wuu socdaa weli wuu raadinaya hadduu helana okay hadduu waayana waa ka dulboodana muhiimad waxa weyn inaad garataan xagga haddaad ku qortaan faylka doonaysaan uu soo saaraya markiiba xaggu faylku ku jiro waxaan intuu raadinayo waxaan in sheegaya waxaan qaadan doonaa control panel start xagga marka la galo sida maalintii hore in sheegay control panel waa ka xagga taala maalinta ka horeysana dabadaba soo dhigo faylku dibaddu yaala marka laba location baaba balka ka soo saar karta ama start xagga ku dhufatid control panel waa ka xagga control panel baaristu uu dhameeyay marka waxa soo dhan buu soo saaray magacayga ku qoran oo Rashida imikana waxaan u tagaynaa control panel wuxuu control panel maxaa muhiimsan anu maanta waxaan qaadanaya wax muhiim oo badan dadku ka yara ma garanaysaa ka yara luman tahay waxa weeyaan installer ama installer it programka marka la soo dejiyo masaxadiisa iyo waxa program hatta marka aad diribtid inuu programmo kaligood soo degeen oo aad eegtid maxaa ugu marmar dadku qofka isku taabanaya click message baa soo baxay ku dhufanaya wax kale ku dhufanaya okay file bas ka soo degay ma oga computerkiisa baa cuslaanaya waxaad ogaataa marka waxyaalaha soo dejistay aan aad u baahnayn oo midna kala virus noqon kara xitaa xaggan baad tagaysaa faylka computer ku jiro dhan orta xaggan bay kula jiraan all files aad soo dejisay ama waxa sheegay all program soo dejisay antivirus ahaado wax video furo ahaado Firefox ahaado Google Chrome ahaado maxaan ku lahaayay Word iyo wax walba xagaas daba wax muhiim ah qofku markuu xaga taagan inuu installer datum waqtiga tiidka oo soo waqtiga
time ku soo dejiyey ama maalintii ama saa xaggan baa ku dhufanaysaa maxaa ugu dambeeyey 2021 bishii 16 waxaan soo dejinay casharkii ugu dambeeyey kaasuu ahaa wuxuu ahaa office word viewer okay offer waan ogaaday inaan kaa soo dejiyey okay isla masaxi doono markaa waa ku dhufanaysaa double click wuxuu qoranayaa vildo ma doonaysa inaad masaxdid haa masax buu qoranayaa saasuu masaxay markaa waxay ogaataa sida loo soo dejiyo programkana waa ogaatay sida loo masaxan programka waa ogaatay muhiimadu waa taa inuu sii wadaya hawshu wadaya inuu masaxo okay waayahay uu sii wada okay inuu ka masaxay xagaa ku masaxay norton programkayga aniga balki waxa la yiraahdaa antiviruskayga marka antiviruska magaciisa meelahana waa ka helaysaa kaasa ugu muhiimsan oo ah soo faylka soo dejisay programka soo dejisay xagee yaalaan iyo soo loo masaxi lahaa okay waxa qaadanana word programkan word baa qaadanana word waa maxay taa word waxa weeyaan word Microsoft Office oo programka soo raaca badana shirkadda Microsoft uu isku mid ka yahay office waxa weeyaan waa waxyaalo badan word baa kamid ah oo iyo PowerPoint waxa kamid ah Excel waxa kamid ah Access marka dhowr program buu leeyahay marka word baa ugu muhiimsan word waxa weeyaan qof intuu برنامج هو عاوية إنه واحد قرص مثلاً كله واحد بقرارة هذا قف قرص قرار هذا جواب 10 لغري سوقر لتر سوقر مثلاً كله هذا سي في جا قرص برشون بريف جا هذا قرص واحد قرص قرص أما هذا هستوري أما قصة أما واحد قرص ما حنا برنتونا ماشى ما حنا برنتونا برنامج كان أو بحي مايكروسوفت وورد سلوا تعاملوا برنامج كاسي علمي هان iyo nusuusta ama waxyaalaha la qorayo wordiyada iyo waxyaalaha la qorayo si ula tacaamul lahayn iyadoo qoran iyo silaad u sameyn karna mesela kale tables ama oo bagan jadwal dhan iyo sileeba suuradaha mesela kale jadwalka laftiisa lagu dejinayo laga saari karo mesela waxyaalaha sawirada soo qaatay oo kale sawirka sharaxayda waxa qorayso mesela kale يو سلو تعامل سيد تشرح وحن برنامج كانوا دون سلو تعامله بسم الله الرحمن الرحيم وورد باخو بلاب نوكا 10 كان و10 مهمة أي مكان مثلا خلايا حاجة نوكا وحويان أوفيس شركة أوفيس علامة ده شعار كده وكا مرة حاجة قال لهم بحيث هاي نت وحكوسينا يا فايل عصب عندهم صفحات عصب كانوا وكانوا وحكوا قريصة معها مثل عصب ونسيبه كلهم صح كذا فنسا وحكوسينا محل دونسه markaan samid banaan wax doon samid wax ka hadlaya marka wuxuu leeyahay nooc kala duwan buu leeyahay oo uu ku caawinaya fax baad dilaysaa waxyaalo badan marka qofku haduu galo xagga asaga laftiisa ka heli kara wuxuu doonayo ana waxaan roonayaa mid file cusub midna kale waxa file-ka cusub waxa wasawi way start waa ka hortu صفحته ugu muhiimsan koobaad horta marka hore marka qofku wax bilaabayo maxay faa'iido leedahay waxa leedahay faa'iido imka midna kale waxa soo qaadanaa letter ba soo qaadanaa midna kale letter ba soo qoranaa al salaam alaykum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله وي السلام عليكم ورحمة الله تاسو كلمة نوكرة لترسكا وقري لترسكا مركا قري وحا قرالكا واحد دوني مثل نوكرة إنا خطك وينيسيو مثل نوكرة تولكن وحيالا بدهم كو عاونيا مركا تولكا سا قادلنا واي ددك سنين ugu magaratay si advance aanu ma dhigay laakiin basic baan dhigi doona wax yar fudud kaasan qoray marka qoro khadka doonay inuu weynisiyo horta marka hore aanu xaga tagin aanu dul taagan waa sameyn karaa xaga buu iga soo baxaya marka taabto eeg marka la hoosa oo kadibna xaga bidix midigta taabto uu soo bixi doona wax walba u baahanay xaga yaala xaga uu ka soo bixi karaa okay
xaggaas waxayaan khadka weynaysi iyo ballaarka ballaarka wuxuu iga dhigay intaa waxaan ka dhignay 28 xaggana waxayaan qoraalkan farshaxanka oo kala duwan مثلا نوع الدونيو والنوعي كانوا كلا قاضي مثلا كلا واحد دوني مثلا كلا أنا كديجو خط كانوا قري قرالكها إنا بلاريو مثلا كلا كلمة ده كلا تبلاري حتى دول استاجوا حورا دبل كليك بركل دول استاجي محل ثمانية دبل كليك يعني وحويان waxa kullu fanaysa mouse-ka bidixda si loo soo qaadanay qofkii aanu ka hilmaamin yaanu qofka ka hilmaamin bidixda marka la taabanayo iyo bidixda midigta imika waxaan ku dhigtay bidixda 2 jeer ama qofku wuxuu sameyn karaa inuu markiiba directly وكان كيبورد مركز تول تاجن تاعي واحد يقول فرنسا كنترول all كاسا سو قانون كنترول كدبنا select بوك عادي وحكوسو صار يا خدك بلوجو إنه هو ردوا أوكي واحد دوني خدك أوردن مثلا وكذا كديجو F ولا بلاريو واحد دوني قلوعيو waxay doonayaan line in hoos saaro ka weyn line buu hoos saaraya qoraalkii buu line hoos saaraya midna kale waxaan doonayaa inuu sii weynaysiiyo bal naanti qoraalku soo ahaado weynaysiis oo adigu automatic adigu numberka xagga ka dooran ka aadana waad ku dhufan kartaa uu sii weynaysiinaya a plus kana waa a minus yaree soo arkaan واحد دوني مثلا كلا إنا كلرك بدلو إنه أوتوماتيك ومدو عصام بدون كليجو عصام بكليجا واحد دوني كسر اليوم ماشي صورة وقرال كوي مركب words مدو بكون لقنايا واحد دوني هنا دحية كليجو دحية إنه واحد يالو سو قرال كويري هاي ويرانيا dhexdu yaala koonaha hadda doonay ka dhigo koonaha xagan kan baa ku dhufanaya dhexda dhinaca kale hadda doonay si tartiiba marka qofka qoraal dhan oo buuxa qoro oo doonay inuu tartiibiyo yaantu wax qortay qoraal badan ba qortay midna kale qoraalka badan ee qortay waxa doonaysa ka dhigtid wax wala siman midna kale kaana waa qaadan doona imaga wax qaadan karnaayo kale waxa weeyaan tan kale oo asaguna ka dhigay nambaro siinaya ama punt siinaya punt yani wuxuu ku bilaabaya qoraalkan baa qoray waxaan mesela koowaad iyo 10 labaad waxaan 10 saddexaad saasoo kale saama u qoray midna kale kan imika koonay wala yaala hadaa doonaya dhexda dhigo ka soo martin ku cili koonaha kan waxa doonaya kaasaade cinwaanku ahaa Soma kuwana waxyaali kale kuwa waxa doonaya in punt siiyo midna kale select qofku soo sameeyana way ka loobay mouse-ka markuu haayo qofku markuu mouse-ka haayo mouse-ka gacanta saa u hay oo dhaqaaji adigoo saa bidixda adoo saa u hay aad dhaqaajisid uu madaweenaya eegsa saadoo dul taagan bilowgiisa saasa u dhaqaajinaysa uu wala bulugu ku dhigaya headline buu saaraya kuwa marka doonayna calaamado siiyana waxa doonay calaamadaha ka bedelo midna kale wax kale siiyo point-ka kale hadda doonayo number ina siiyo ka weeyaan calaamaduna waa kuwa xidig baa doonaysa ma waxa doonaysa kan baa doonaysa page ma waxa doonaysa kun wax saasa doonaysa ka dhigtid doonaysa number ina siisid iyo waxyaalo kala duwan xitaa sida ABC-ga ku siinayo مثلا كلا قف مركو دوني إنه كسمية كوبي كوبي بدنا كسمية مثلا كلا بدو كوبي كسمية headline بسمية
midoweynayaa saamu sina uu dhaqaajinaya kaasi headline-ka bidixdan ka bilaabi midigtan ka bilaabi kara waxaan doonayaa copy ka sameeyo kan waxaad taaban kartaa control qofka doonaya inuu degdeg u sameeyo sida fudud control C oo copy iyo control V oo paste oo markiiba de meesha dhigayo oo ku dhijinay meesha mar labaad ku soo celiyo yana dadka hadduu qofku doonayo inuu sameeyo control hadduu doonayo copy ka sameeyo control C hadduu markuu control C sameeyay yani uu qaaday copy buu ka qaaday marka doonaysid inaad meeshii ku dhijisid haddii wixii aad copy ka samaysay waxaad taabanaysaa control V labadaas isku qabanaysaa controlka C waa control weeyaan soo gaabis control V ku dhaji control C copy ka qaad waxa imika copy noo sameeyay balkii headline saaray oo midoobay wax gaba ku dhufanaya gacanta midigta copy baa kulanaya hoos baan u degayaa marka qofku hoos u tagayo wuxuu taabanaya enter buu taabanaya enter kaawe enter marka hoos u degayo hoos baa doonaya u dego waxaan kulanayaa control V ama control V waka uu soo saaraya cashirkii koowaad copy buu ka sameeyay waxaan doonayaa matalan kale ina anoo keyboardka isticmaalin ina xagan ka isticmaalo oo kaas waka paste uu ku dhufanaya paste hadda doonayo delete ku sameeyo matalan kale waa midoweenaya haddii kale wax isticmaali karaa midoweysta horta marka hore midowey kadibna waxaa isticmaali kartaa delete keyboardkaaga delete uu ku yaala qofba delete uu leeyahay kanoo kale keyboardkan xagu delete ku leeyahay ama waxaa la isticmaali kartaaba backspace macnaha masax kaa qofku isticmaali karaa oo markiiba masaxaya okay masax baa kuranaya u masaxay okay hadda doonayo kusoo celiyo wixii marka hore masaxay xagga ma isticmaalaya taa okay back igu soo celi kana isla hore ka dhig hadda doonayo wax badan inuu soo celiyo xitaa okay uu soo celinaya xaggii markii horeysay aan taagnaa hadda doonayo ka soo noqdana waa ka soo celinaya saasaan sameynaya wixii dhan bii soo celinaya sala warnay marka ama qofku hadduu doonayo inuu isticmaalo keyboardka wuxuu isticmaalayaa control Z waxayaan anoo aanan xaggaa tegin baa kulanaya on directly back u kulo saarno usoo celinaya waxyaalo badan baa jira qofku laakiin bilow ahaan markuu isticmaalayo badana muhiimadda ugu koobaad uu qofku ka heli karo waa maxay oo dee magaranaysa wax u fududan kara waa qoraalka qaabka qofka qoraalka uu qorayo qaabka uu dhigayo qaabka uu dejin karo iyo waxyaalaha hadduu qofku practical sameeyo dhowr cisho wuu la soo qabsan karaa wuu la keeni karaa wuxuu leeyahay toolsku wuxuu leeyahay kole badana title bar waxaan oo kale title bar meeshana waxaan adawaadka la isticmaalay oo dhan oo u baahnayd xaggana waa state barkuna waxa weeyaan meesha adigu faylku qaabku ahaanayo qaab kala duwan masaasaad doonaysaa se sidii hore waa masaxaysa stank baa ku ranaysaa mise waxaad doonaysaa inuu matalan oo kale saa ahaado safaxad weyn masaa caadiga oo wuxuu ka saarayaa meeshao dhan ama sidiisii hore kusoo celisid oo saa ahaado kanna waxa weeyaan ballaarka xaashida wax ku qoraysid ballaarkiisu inteeba doonaysa inuu noqdo ballaar weyn ballaar yar saas oo kale boqolkiiba 50 boqolkiiba 58 boqolkiiba aduu inta isla doonaysid xagaasaa ka dhigan doonto casharka maanta waa intaa weeyaan hadduu casharku faa'iido leeyahay khayrka iskugu soo duceyno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu